السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta muuqaal cusub fadlan ku soo dhawaada channelkeena subscribe tiyaan la ilaawin. maalintii dhawaato xalqada waxaan kaga soo sheekeynay sifooyinka aad ku garan karto ruuxa narcissiska ama narcissiga. xalqadan maanta waxaan baranaynaa ama waxaan ka sheekeynaynaa xalqadan maanta waxaan kaga sheekeynayaa insha Allah siyaabooyinka uu maaragtay gameska uu kugu dheelo maskaxdaada uu ku dheelo ruuxa narcissiska. qof waloo inaga midaba waxa ku hareeraysan ama hareerihiisa dadka jooga uu ka helayaa qof ama ka badan oo narciss ah, laakiin aad wadiga laga yaabo aan ogeyn. laga yaabo inuu guri kugu noolyahay, laga yaabo inuu goobtaada shaqada, laga yaabo inuu yahay qofka aad xiriirka la leedahay, laga yaabo inuu yahay maaragtay qof qiimo weyn aad u haysid oo aanad ogeyn maaragtay sifadan inuu leeyahay ama inuu yahay qof narciss. siyaabaha aad ku garan karayso qofka narcissiga sifooyinkiisa waanigi ka soo waramay. imahana insha Allah waxaan sheegi doonaa waxyaabaha qofkan maaragtay gameska uu qofka ku ciyaaro si uu qofkan u dilaysto oo maskaxdiisa maaragtay uu gumeeyo oo gumeysto. waayahay aan mar labaad idin xasuusiyo channelka subscribe yaan laga ilaawin. waxyaabo badan baa jira oo maaragtay siyaabo fara badan iyo wadooyin fara badan oo narcissisku ay dadka games ugu ciyaaraan. laakiin waxa kamid ah waxyaabahaas ee narcissisku ay sameeyaan inay maaragtay dhibaato ay abuuraan oo maaragtay waxba jirin ay arin sameeyaan. مثلا waxyaabaha waxay ka codsanayaan waxyaabo ay adag tahay inaad sameyso ay dhib ku tahay. hadii مثلا laga yaabo yani ninka aad xiriirka la leedahay ama asqabtaanba hadii uu yahay ruux narciss inuu ka dalbado dalabaad xaraam ah, waxyaabo xaraana inuu ka dalbado, taasina ay kugu keento inaad maaragtay ama dambaabtid oo isaga wuxuu sameeysid ama aad halka ku kala cadhootaan, taasina ay keento inaad dambi dareentid iyo inaad qofkan dhibaato gaarsiisay adigoo waxaad diiday yahay hada wax mabaadi'daada iyo akhlaaqdaada iyo diintaadaba ceeb ku ah oo khalad ku ah, laakiin inaad diiday kaliya tala ay waxay kaaga dhigeen dambi way sameysay. taa waxay sameynayaan afka ku buuran waqti dheer ilaa aad ku khasbanaatid inaad raali gelin ka bixisid xumaantii maaragtay aad diiday darteed. taa lafteedna waa dareen aad iyo aad u xun. مثلا kaba soo qaad yani haday gabar tahay ruuxa narcissiga inay kugu tiraahdo ama ka dalbato waxyaabo maaragtay kugu adag sida dhaqaale adag oo kale ay ku tiraahdo bixi oo waxa ay si deetana wixii aad maaragtay aduguna aad dhibaato dareentid ama aad qofkii maaragtay kala xanaaqdaan oo iska ka xanaajisay ku tiraahdo dayma daneynaysa dad daneynayso waxaan sheegay dhood bixinay way ogtahay daynaad kareen waxaan soo dhan. taasi maxay keenaysaa inaad wixii maaragtay si uun soo tiraahdo u keen ama aad qofkii kala boodaan. haday dhacdo si uun u sameysid haday dhacdo oo aad qofkii wixii u sameysid kugu adkaa waxay sameynaysaa taas waxay u galaysaa waxa la yiraahdo narcissistic supply ay u tahay oo ah inay quutaan ama shidaal qofka narcissiga shidaal kama maarmo waxa uu quutaa maaragtay waxyaabahaas wax kasto attention isaga xaqiisa ah ay quutaan. marka waxay u tahay shidaal bay u noqonaysaa farxad bu dareemo xonaya balag aniga dartayba waxa loo sameeynaa aniga dartayba saa loo yeelaya aniga dartay ayuu waxa soo lacag u bixiyay waayaan waxaan ahay qof aan la heli karin oo ay adag tahay in la helo ay meelaha ka oranayso. siyaabaha kale maaragtay ay dadka narcissisku ay nafahooda ay u gumeeyaan oo qulubtooda maaragtay u duleystaan gameska ay ku ciyaaraan waxa kale kamid ah horta qofkan inay daraaseeyaan qofkan inay ogaadaan waxyaabaha uu jecel yahay, waxyaabaha uu neceb yahay, waxa uu ka xanaaqo, waxa uu ku farxo, waxa uu ku nafiso, waxa uu ka cadhoodo, wax kasta oo noloshiisa kamid ah inay daraaseeyaan ay qofka ogaadaan. kadib markay waxaas oo dhan daraaseeyaan inay qofkii wixii ku dhibaateeyaan daraasadii ay ka hayeen inay مثلا waaba qof gurigooda nooshiin waxaad neceb tahay adigoo hurdo in la hadlo ama la dhawaaqo oo kale inay sameeyaan xilliga hurdada ugu fiican tahay inay cod sare ay ku heesaan ama cod sare ay maartay quraan ku akhriyaan. dadka adnagana aad xanaaqdid aad tiraahdo waxa ma adiga joojisid waad ogtay inaan waxa jeclayn dadka qofku ku raado waxa guriga lagu nafisi kare ruuxi narcissiga ku raado guriga ma lagu nafisi karo inta wax walba waad iga qaylinaysa waxaan sameeyba garan maayo. taasi ay keento inuu iscaareysiyo oo waqti afka ku buuro aduguna aad maaragtay dambi dareentid raali gelin aad bixisid deetana noloshaada aad noqotid sidii qof ku dul soconaya qolof beedo kale
sida u dhowraysid aad nolosha qofkuna way adag tahay qofku inuu maaragtay isaga is noqon waayo oo noloshiisa si nafis u wadan waayo way adag tahay inuu qof maaragtay noqdo qof mar walba is ururiya yaa laga cadhoonin yaa laga xanaaq wadareen aad iyo aad u xun siyaabaha ay maaragtay dadka ay ku gumeeyaan ay qulubtooda ku gumeystaan ay ka mid tahay inay qofka maaragtay waxa iyagu sameeyeen inay qofka hadana hadhow dambi ku geliyaan si uu qofka raaligelin u bixiyo iyagana ay u helaan supply ama shiida way inaad cadhootid ama maaragtay aad waxyaabahaas oo dhan cadhadaadu yani waxay u tahay supply bay u tahay ama shidaal bay u tahay murugadaadu shidaal bay u tahay raaligelinta aad bixinayso shidaal bay u tahay yani anigu qof baan hay jiro oo jooga waayo dadkan dad aad iyo aad isla weyn weeyaan saameynta ay sameynayaan hataa saameynta liidata ee maaragtay dhibaatada ah ayaa iyaga yani dadkiisa uga waalay eeg ay gudahooda ka leeyihiin waxyaabaha ay qofka maaragtay dadka nafsiyadooda ay ku duleystaan ay ku dhibaateeyaan waxa kale kamid ah waxa la yiraahdo gaslighting Soomaali ma garan waxay ku noqonayso laakiin qofka inay maaragtay dabagediyaan oo ay qofka shaki ku ridaan oo maaragtay ay qofka maaragtay ka shakisiyaan naftiisa way يعني إنه عافمادكيسا مسكحد إنه عادي هاي يعني عقلكيسو إنه فرديو كارتيديسا أي كشكي قليان عرقتيسا أي شكي قليان محال لها قفك قناعاديسا نفتيسا أو قوة أي كشكي قليان قفك يعني إنه موجيان إنه يهيوض يعني أيو دران فرين أهوض عقلي يرتهاي كارتي مليهيد وحتى قف إلوشية بدن وحتى قف معرفتي عافماد قفكيسا عقلياد ويريهاي وحتى قفن أدونك عرقتي بدن كاهيسان waxaad qof iska miskiin oo meel dhow araga qofka waxa soo dhan inay ku beeraan gudihiisa dareemada noocaas laga yaabo qofka aan asagoo arintan oo kale la kulmi waliin inuu oranayo yani deeseebo qof gudahayga u gali karaayo waxa kale uu sameyn karaa duuraado de wuxuu leeyahay waxaan leeyahay war iska ciyaarta wax isma jiraan bas halkaas ku dhamaanaysa laakiin arrintu saamaha waxa dareemi karay waxaan ka hadlayo qofka ay ku qabsatay ee dareenkan dhab ugu dhaxno waayo waxa jira siyaabo nafsiya oo qofka qalbigiisa aad wax alaala waxa doonto ku dhex gashan karto adigoo aan wax alaala wax jujuuba ama qorna ku qaban yani khasbin waxyaabaha fududeeyo qofka inaad aqligiisa waxa doonto ku beeri karto fikirka doontaad ka dhaadhicin karto waxa kamid ku celcelinta in qofka loogu celceliyo yani waxaad samaysay waxaad tahay waxaad tiri mawaaqif fara badan dadka narcissism-na waxay isticmaalaan in ay wixii ku celceliyaan mowqif kasta inay mowqif kasto dana arintan aan xiriir bala lahayn ay waxay kaaga soo dhex saarayaan inaad adigu maaragtay sidii wixii la sheegay ay runtahay mesela arin bu qofkan narcissiga ay sameeyay deetana cadeynteedo dhan waad haysaa wax ku tir waxaad samaysay wuxuu leeyahay ada ismoodsiiyay wad moodaysaa yani ma aha arintu saasay waa laga yaabaa wad ilowday ama arin si kale u dhacday deetana markiiba shaki ayaa laga gelinay waayo dadka narcissiinta waxay leeyihiin been ay ku qanacsan yihiin inay runtahay oo kale qof mararka qaar beenta wuxuu ku sheegay isagoo dareemayso inuu ka yara laba leeyahay iyagu laakiin beenta waxay ku sheegeen iyagoo aad moodid inay ku qanacsan yihiin 100% oo wixii ay dhab u yihiin deetana adiga shaki ku galaya maadaama adiga laftaadu hore aad nafsiyan aad u diyaarsanayd inaad aqbasho wax kasta oo qofkan kaaga yimid mesela hadaad qofku yahay qof aad jeceshahay oo aad maaragtay aad la qabsatay waliba jacaylku waa kala duwan yahay jacaylka qaybtiisa la yiraahdo jacayl caadi iyo jacayl qabatin ah oo qofka inaad qabatintid sida balwada loo qabatimo ee qofku uu la qabsado balwada in qofkan jacaylkiisa loo qabatimo dadka qofka marka jacaylkiisa qabatintid waxa kugu dhacaya inaad qofkan wax kasta oo ku leeyahay aad u qaadato sidii wax yimina samaay ay nafsiyadaada gudaha u qaadato yani uu qofkan markiiba gudaha ay gali karo insha Allah maalin kale ka sheekeynaa qaabka uu maaragtay loo qabatimo qofka idmaan ayaa Carabi lagu raahdaa qofkan jacaylkiisa loo qabatimo sifooyinka ay leedahay aad isku garan kartid jacaylkaagu jacayl caafimaad qaba yahay iyo inuu yahay jacayl qabatina jacaylka caadiga ah faa'iidooyin buu leeyahay jacaylkan kale laakiin waa jacayl sunaysan waana yani waa dareen xun waayahay xalqada maanta intaas ku soo gabagabeynaa intaynu mar kale kulmayno muuqaal noocana oo aan kaga hadlayo maartay cilmi nafsiga iyo narcissiska iyo narcissiska
ama narsisiga af Soomaali ma garanay wax ku noqonayo laakiin waa ruuxaas maaragtay in sifooyinkiisa ku soo sheegay xalqada hore channelka la taageero subscribe hal leeyahay insha Allah mar kale iyo muuqaal cusub insha Allah intaan ku kulmayno salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh